jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya ay kaalmo u direyso wadan kamida wadamada Afrika ee la yiraahdo Equatorial Guinea. warka xiisaha weyn lahaa waxaan haatan ka wareysanaynaa Secretary-ga Amuuraha Dibadda ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya Mr. Umar Cabdi Qaalib. Mr. Secretary, waxaa jirtay war cusub inuu ka soo baxay habeenkii xalay ahaa golaha sare ee Tawradda ee ku saabsan kaalmo loo dirahayo wadanka Equatorial Guinea. waxaana isla markaas suurtoobi kareysa in aynu ognahay inaga lafteenu inaynu ku jiray waqti xun oo abaara isla markaasna waxyaabo kale oo wadankeena wax ka qabasho u baahnaa inay jireen. marka maxay tahay ujeedada laga leeyahay inaynu wadan kale kaalmahaatan u diro waqtiga kan haatan aynu ku jiro? Abdullahi su'aal fiican baad weydiisay. horta ta ugu horeysa waa ogtihiin imika golaha Tawradda iyo nimanka secretary-yaasha xukuumadda ka dhisaniba inay imika gacanta ku hayaan amba ay wax muujiyeenba af iyo adinba in wadanka gudihiisa iyo dibadiisa wax laga qabto. marka taasi halkaas aan ku dhaafayaa. ta kale aan ka yar warramo Equatorial Guinea xaggay ku taala maxayse tahay? dadka badankiisu waan ogahay inay yaqaaniin, laakiin balorto waxa maskaxdiina gelisaan Kismaayo marka la joogo bari markaad eegto waxa ka xigta xagga bariga badweynta Hindiya. nimankan cilmiga juqraafiga la yaqaana waxay yiraahdaan waxa jira xariijin la yiraahdo bartamaha dunida. xariijintaasi Kismaayo martaa deeto marka ay xagga galbeed u kacdo meesha Kismaayo ku hagaagsan xagga galbeed ee badda ka soo horjeedana ay tahay badweynta Atlantika ayay ku taala Equatorial Guinea. marka la tilmaamayo waxay u dhaxaysaa labada wadan ee Afrikaanka ah ee midna la yiraahdo Cameroon midna la yiraahdo Gabon. waxa kaloo ku dhigsan sida bariga hore Tanganyika iyo Zanzibar ay u kala laba ahaayeen imikana ay isku wadanka yihiin ee Tanzania la yiraahdo laba jasiiradood oo yar yar oo midna la yiraahdo Fernando Po midna la yiraahdo Anopan. haddii dadka la tiriyay la eego imika dadka ku nool labada jasiiradood iyo meesha wadanka naftiisa wax badan maaha, waxa weeyaan 500 oo kun oo qof. caasimaddu waxay ku taalaa labada jasiiradood ee aan sheegay oo caasimadaas oo la yiraahdo Santa Isabel. horto Equatorial Guinea waa taas iyadoo aan hubo in rag badan yaqaaniin. nimanka Isbaanishka la yiraahdo ayaa gumaysan jiray muddo 200 oo sanadood ah. deeto markii dadkii ay kaceen ee ay yiraahdeen xorriyadeedii baan doonaynaa sida Afrikada kaleba ay u xorowday ayay dhibsadeen nimankii Isbaanishka ahaa. dabadeed sidii berigii Faransiisku uu ku sameeyay Guinea ayay mar kaliya ka dhaqaaqeen. taana ujeedadoodu waxay ahayd inay markaa baktiyaan oo ay kufaan. dadkii ka shaqeynayay dawladda maarta u shaqeynayay ee Isbaanishka ahaa way iska qaar dawlad raaca iyo qaar markab raacay noqdeen. baanankii oo ay lahaayeen nimanka Isbaanishkiihi way xidheen. nimankii militariga amba xagga booliiska uga shaqeynayay way ka tageen. waxa la sheegay xitaa inay nalkii shidmayay amba alaabtii xafiisyada tiile ay gurteen. marka dadkii reer Equatorial Guinea waxay noqdeen dad iimaan leh. marka ninkii madaxda ahaa iyo dadkiiba way isu tageen waxay yiraahdeen war mayaynu ma ilaahay baynu leenahay dad samiyaynu nahay mise nimankana inoo ilaaha. marka waxay ogaadeen inay dad yihiin ay tolna leeyihiin. waxay markaa qaylo u soo dirsadeen nimanka la yiraahdo OAU aynu inagu ka mid nahay. waa jamciyadda dawladaha Afrika ee xortihi ay samaysteen. markii caynkaasi dhacday jamciyaddu markiiba horta waxay u dirtay rag
oo waxaa dhacday ninkii diyaalatale halkay noogu yimi niman ka hooseeya mid ka mid ihi inuu markiiba u dhoofay oo uu noqday isaga oo AU-da ka tirsan wasiir al-khaarijiyihii ummaddaasi markaa wixii nidaam ahaayee caalamka dabadda wargaadhsiinaya oo dhan halkiibuu ku dhisay nimankii oo AU-da ka tirsanaa oo rag badan oo waddannada afrika ihina markiiba wax lacag u dira iyo wax dhakhtarra u dira iyo wax macallimiin u dira iyo wax cunto u dira iyo wax askar u dira iyo waxyaalo kale ugu yabooha ayay noqdeen dowladaha markiiba wax ugu dhawaaqay waxaa ka mid ahaa jamhuuriyadda carabta Ethiopia oo u dirtay askar military ah inay militarigooda wax baraan dowlado badan oo kalena waxyaalo kale ayay ku dhawaaqeen marka aan isweydiino maxaynu inagu aynu ugu yaboohnay Equatorial Guinea maxay sababtu tahay marka waxa aniga ay la tahay inuu nin walo Soomaaliyeed oo gobonimada Soomaalida jeceliba inuu igu waafaqi doono haddii aan ilaahdo 3 arrimood ayaa waajib inaga dhigay inaynu caawino ta ugu horeysa waa maxay waxaynu ku jiraa jamciyadda oo AU-da la yiraahdo ee Afrika ka dhaxaysa waxaynu ku dhaaranay amba aynu ku qoranay meel in Afriki xorowdo oo aan lagu arag dusheeda wax gumaysta mar haddii aynu caynkaa ku dhaaranay waa inaynu wax alla wixii aynu ka qabanayno ee taageenna ah aynu isku daynaa marka iyadoo aynu taasi fulinayno ayay waajib inoo noqotay inaynu wax siino talabaad waxa golaha sare ee dowladda iyo xukuumadda iyo shacbiga Soomaaliyeedba ay imika damacsan yihiin inay ka masaxaan caalamka taariikhda inoo samaysantay intii dhaweyda aynu xorriyadda qaadanay ee ah in dadka qaarkii inoo qaateen inaynu had iyo goor wax barino markaas iyadoo aynu gobonnimadii Soomaalidu u dhalatay aynu cuskanayno oo ay xusuusan tihiin iyadoo inta aynu ka taag daranahay ayaa marka cid ku soo qaylo dirato nin wax uu haysta ay yar yihiin ayaa waxa uu haysta wax ka bixin jiray marka iyadoo gobonnimadii aynu u dhalanay aynu cuskanayno ayaa ummadaasi Afrikaanka ah ay noo soo qayshatay wax iyagana wax weyn u tara inagana aan waxba ina yeelin inaynu siino ayaa waajib inaga dhigtay taasina waa tii labaad ta saddexaad waxa aynu baabi'inaynaa amba aan u sheegaynaa dadkii iimaankoodu jilicsanaa ee odhan jiray marka xeebta Soomaalida la soo qaado ee la yiraahdo Faransiisku ha ka tago oo xorriyad ha siiyo ay odhan jireen haddii Faransiisku ka tago way baktii doonaan haddaba iyadoo taasina aan beeninayno in maanta iyadoo 41 wadan oo Afrika ah oo xor ah oo ku dhaarsan inay Afrika xorowda ay jiraan in amba xeebta Soomaalida ha ahaato amba qoladii kale ee gumaysiga ku sii haray ha ahaatee iyagoo Ilaahay la kaashanaya aanay ka baqanin weydin baktii saddexdaas ayaa nagu kalifay annagoo og amba aan ka talaabsanayn tamarteena inaynu dhawaaqaasi ka soo yeedhay Equatorial Guinea aynu ajiibno awoodeenna aan wax ka siino dadka Soomaalidu waxa ay weligood maqli jireen inaga oo wax leena siiyo inta leena kaalmeeyo hase yeeshee marakan waa markii u horeysay oo dhagahooda ay ku dhacdo inaynu inagu dad kaleeto wax u direyno oo kaalmeynayno waxaan jeclaan lahayn hadaba inaan ogaano haddii hadda ka hor leena soo weydiistay oo dawladaha Afrikaanka ay soo weydiisteen kaalmooyin caynkaas oo kaleeta iyo sidii aynu wax uga qabanay waa su'aal labaad oo fiican marka waxa jirtay bari dhexdii ah imika dhibaatadaasi way dhamaatay in wadanka Congo rabshad badan ay ka dhacday marka iyagoo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa la kaashanaya ayay dadka reer Congo weydiisteen Afrika iyo dunida kaleba inay nabadda Congo gudaheeda ay wax ka qabtaan
amba xasiloonaysiiyaan waxa dhacday in wadano badani ay u direen askar halkaasi nabadda wax ka qabata waxaan maqlay ambaan ogaa in inagu niyadda aynu ka jeclaysanay inaynu halkaa wax ka qabanno laakiin ay inoo suuro geli weyday amba laga seexday amba la isku haleeyay wax dhacay mooyee laakiin waxaan ogahay in aad iyo aad meelo badan leynooga sugayay waa aadna waa leynoogu han weynaayo marka askar iyo waxyaalo caynkaas la soo qaado daa'iman waxa la oran jiray nimanka Soomaalidu waa niman askar fiican baa ka timaada niman geesiyaal ka yimaada marka kulli waa loo baahan yahay in halkaasi cid ka tagto laakiin ayaan daro waxa ah inaan taasi la fulinin marka waxaan halkan aan ku yar darsanaya waxyaalaha caynkaasi marka ay inoo yimaadaan waxa fiican inaynu noqono dadka ugu horeeya ee waxyaalaha caynkaasi wax ka qabta waayo qolo waliba waxbay ku faantaa qolaha ku faanta wadankooda dahab ka buuxa iyo waxyaalo kale ka buuxa inaga iyada oo wadankeena aynu ognahay in macdani ka buuxdo amba dahab ka buuxo waxa aynu ku sii faano waxa ugu weyn wax la yiraahdo dad waxaynu haysanaa dad aynu ku faani karo oo haddii ninka ku haboon meesha ku haboon loo diro waxaan hubaa kalgacal iyo sharaf weyn inuu qofkaasi amba dadkaasi ay inooga soo kordhiyaan cidii ay is arkaanba waayo waxaan ku kalsoonahay gobonnimada iyo wanaagga ay Soomaalidu leedahay ee marka ay dibadda u baxaan haddii dadka ku haboon halka loo diro inay wanaag weyn ka soo kordhiyaan sida aawadeed ayaan ku talinaynaa in waxyaalaha caynkaasi markayna soo maraan aan ugu horeyno wax u ajiiba waayo waxaynu haynaa dad aynu ku meel tagno mahadsanid